runtii arrintan ka geystay gacan ka geystay in Soomaaliya badeeda ay heli lahayd qof kastuu yahay community kastuu yahay madaxweyne kastuu yahay mid kasta inaan u mahadnaqno unbaa runtii dhammaanteen mataqaana noo banaan hawshana wala wadaley alqaaba runtii insha allah taariikhda mataqaana dadka Soomaaliya meel kasta joogaan ay ka geli doonaan inagana runtii community ahaan waxaa laga rabaa arrimaha noocaas oo kala markay naga soo gudboonaadaan dadku waxyaaba badan bay ku kala aragti duwan yihiin siyaasadda marka diinta laga diinta iskuma haysano bini aadamku siyaasadda haddii uu uusan ku nidaysnayn waxa weeye waa mushkilad weyn oo dadku aragti guud baa maaragtay aragti kala dadku waa kala aragti badan khasabnaa siyaasadda lagu nidaysnaa laakiin waxa caamkaa mataqaana dadkoo dhan mataqaana saameynaya hadday qarannimo ku shaqaleeda hadday mataqaana waxaasoo meel lagu soo wada istaago oo dadku ay maxaas ka qabsadaan waa muhiimti arrintana maamul maaha dowlad maaha koox maaha waa arrin ummadda oo dhan runtii weye midna ogaada dhulkaa hadda laleeyahay ilaahay baa waxaa ku jira leeyahay shidaal iyo kalluun iyo macdan iyo wax muhiima ku jiro Soomaaliya barwaaqo ka dhigaya waxaan qabaa intayna halkan fadhidaa ilaahay baa og sida loo kala horeynaya laakiin inay horta inuu cafanayno ama ficeeda ilaahay baa og inuu soo gaadhiyo laakiin waxaa laga hadlayaa maanta ma aha 1 sano ma aha 20 sano ma aha oo ciyaalka halkan fadhiya oo kuway siidaan oo kuga sii dambeeya ummadduna runtii waxa ay ku mataqaana ay ku fikirtaa waxa weeye waa aragtida dheer ee hore u soconaysa wadamadan aynu joogna hadda kumanaan kun oo sanadood baa mataqaana hay-adahooda iyo dowladnimadooda iyo waxaasoo dhan ay soo socdeen wax 20 sano iyo 30 sano iyo 50 sano ku yimi maaha inagana marka Soomaaliya oo dhan la eego meel kasta inta Soomaalida xornimada haystay waa 60 sano ma gaadho waa 60 sano wax la jira marka inagu dheer ma aha wali yarin waa fiicanahay laakiin halkaas oo mataqaana hore lagu sii soo marka arrimaha noocaas oo kale waxaan baraarujinay in lagu midaysnaado hadhow qolo walba mataqaana madaxweynaha taageerayso iyo maamul goboleedkii taageeraysa waa mataqaana waxa lagu karagti duunaan karaa marka arrintan runtii dadka Soomaaliyeedna dareen fiican bay runtii ka dhigteen marka dhammaan hamaliyadana iyo farxadana runtii waa idila qaybsanayaa waxaan doonayaa intaan mawduuca iga baxan inaan kusoo mataqaana aan kusoo darsado ama aan kusoo gabagabeeyo inkastoo ay ajendaha ka baxsan tahay haddana waxaa la yidhi haddaad siyaasadda geshid meel kastaa timaadid wixii lagu talagalay waxbaad iskaga darsanaysaa mugti marka intaa yarna waa ugu darsanaya igana ahaada waxaad la socoteen arrimo maalin gubito runtii murugo badan oo dhacayay oo mataqaana ka dhacayay magaalada Laascaanood in dad maaragtay halkaa degan mataqaana dowladda halkaa joogta ay mataqaana ay tiri mataqaana inay ka baxaan oo meel kala tagaan runtii arrintaas waxay ahayd arrin mataqaana aada runtii u yaab badan waa run oo Soomaalidu hadda siyaasadda kuma midaysna oo waa lagu kala aragti duwan yahay laakiin waxay ahayd wax cusub in qof Soomaaliya meeshu dowladda ha joogay in meel laga kaxeynaya meel kale inuu tago runtaasi arrin mataqaana aada murugo u leh mataqaana dadka Soomaalida oo runtii ay aada ula yaabeen bay ahayd runtii dee Soomaalidu ilaa iyo haddeer waxaa weeye si u wada socoto Soomaaliya unbaa hadda loo yaqaana dabcan dowlado iyo maamulo iyo waxbaa baa jira laakiin haddana muhiim waxaa weeyaan intii mataqaana Soomaalidu ama dhinac isku raacayso oo dantooda wada garanayso ama dantooda ay kala garanayso sidii mataqaana in si ixtiraam ku jiro mataqaana loo wada noolaado dadkan xuquuqdooda mataqaana aasaasiga mataqaana in la ilaaliyo inay runtii ay muhiim tahay haddii xitaa meel lagu sheego mataqaana asbaab ay jiraan dee waxaan mataqaana collective punishment la yidhaahdo ama ciqaab wadareed oo dadkoo dhan dulmooda geysan laakiin ashkhaastii iyo kooxihii iyo guruubyadii mataqaana dambiyada dee geystay haddii lagu caddeeyay bay ahayd in runtii lala dhiilgareeyo marka waxaan runtii aad mataqaana aan doonayaan halkan fari uga jiro dowladda Somaliland iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi in arrintaa runtii dib u eegis lagu sameeyo oo mataqaana dadka masaakiinta loo naxariisto oo mataqaana wixii dambina dee dembigooda iyo mataqaana howlahooda mataqaana wixii sharciga la mariyo dadkoo dhan runtii inaan isku darin laakiin arrintaasi runtii arrin aada u cusub bay ahayd dadka Soomaaliyeedna dee si kasta ha kula wada dhulka mataqaana ma kala laha waa la wada jooga meel kasta marka taa u dheeda runtii in mataqaana la dareysanaado baan doonaya inaan halkan ka sheego waxaan runtii hadalkay kusoo gabagabeynayaa mahadcelin aan markale idin mahadcelinayo gaar ahaan gabdhihii walaalaha ee xaflada soo qabanqaabiyey ay ugu horeyso Amina Shadoor runtii aad baan ugu mahadcelinayaa Salma Nimco dhammaan dadkii mataqaana runtii aad
حفلة مثلا نصو وذابي سيجارة مثلا عملية وراشي فاطمة شريف مثلا كاي ومثلا حفلتها نصو قبل شو مثلا إذا نادي مثلا عليا عبد الرحمن ما نسمع بمعنى عبد الرحمن الصومالي دي شيء غلط واسمه مثلا مالك النووية ومنها العليا سيجارة ومنها العليا ممكن تشوف وراشي شواهد ويجي تنسيسي إنه متقانا إنه شكلين إنه استعمال الروتين الرجال ضروري العليا وأنا تقول بلا روتين تحفظ بسنة ماشي إنه تبعتان وما أستمع ماشي لا تقول بدل هذا الناس كتير